Hay'adda Bisha Cas ee Kenya Red Cross laanteeda Mandera ayaa maanta bilowday qaybinta gargaar raashin oo degdeg ah iyadoo la gaarsiinayo qoysas barakacayaal oo ka soo cararay dagaalka ka socda magaalada Balad Xaawo ee dalka Soomaaliya. Gargaarkan waxaa lagu beegay in lagu caawiyo 500 qoys oo aad u nugul kuwaas oo wajahaya xaalado nololeed aad u adag kadib markii ay ka soo carareen rabshado iyo qalalaasa ka dhacay dhinaca xadka. Alxamdulillah Ilaahay mahad iskale anagoo caafimaad qabna oo ma isku iimaanay meeshan barwaaqo primary school qaxooti nagu soo fakaday qaxooti aska imaaday Balad Xaawo oo dib ka dhacay asbuucan dhaxdiisa nagu soo bilowday ma aragtay inay ka soo cararaan colkii xagga ahay oo Balad Xaawo ka dhacay oo ku soo dhaweynay barwaaqo oo gacan buuxda aan ku soo dhaweynay dadka asaga ahay ma aragtay waxa waaye 361 qoys hadda wax la siin rabaa oo Red Cross ay u keentay raashin ya chief Umar Maxamed Isaaq leedaha si waa chiefku meeshan ugu weyn laba asan chief kalna waa qaba marka waa ila shaqeynayaan gacan buuxdan ku soo dhaweynay dadkaayna waa ka ma aragtay waxa jira ma aragtay dadka asaga ahay noocyo badan ay kala yihiin dad curyaan ah jira mid pressure la seexan waayo isbitaal geynaya jira dad badan oo xanuunsan jira alxamdulillah dadka asaga ahay biin waa u helay laba booyad raashin Red Cross waa keeneen maacuun wax ku karsadaan Red Cross waa keeneen culamadana waxay keeneen raashin iyo sokor iyo saabun iyo ma aragtay bariis alxamdulillah waa u dadaalhaynaa kumana filna wax waan rabnaa in lagu soo daro oo hay'adaha kale meelaha kale Ilaahay hadii wax ka soo bixi hadina loo keen waa rabnaa maxay yeelay ibn aadanka waxoo hadda maanta birin waa rabaa oo qoslada lahay hunguriga wuxuu ku qoslay intaan waa ku dambeeya marka la dhahay ma aragtay hunguriga waa qoslay maadaama dad nagu soo qaxo dhib ay qabayeen waxa uu dhib ay qabaan aan ognahay in loo qayliyo ma aragtay meel Allah meeshii wax looga heli kara daawada waa ma aragtay waa la siin hayaa isbitaalaha waa looga imaaday kuwa hataa hurdi waayeen oo qaylinay ma aragtay daawaan siinay waa ma aragtay waa oo pressure qaba ma aragtay daawada pressure baa la siiyaa qadiij ay ka imaadaan taqtariinta isbitaalka weyn inta lagu daawaya marka waana mahadsan yihiin maanta la joogo waxa qiiban haynaa u taaganahay alaabta horan siinay iyo ka gooni maanta raashin iyo saliid iyo ma aragtay boosho kulli waa u haynaa ma aragtay hadda waa ka sawirka meesha arkaysiin oo meeshan taaganahay arkaysiin marka raashinkan waa ku mahadsan yihiin Red Cross aaday nolol shaqeeyeen heemada ay keeneen waa loo dhisi shalta marka iskuulka hadda wax yar ka daba 25 bari ka daba waa la furaya haddii iskuulka la furo dadka meesha ku mahan karna meel kale in loo doono waay laakiin waxa Ilaahay ka tuugaynaa in colkan dhamaado dadkan ay ku noqdaan ma aragtay meeshooda ay ku noqdaan Ilaahay ka rajaynayna alxamdulillah Ilaahay baan ka codsanaynaa inta ducadaas Ilaahay noo aqbalo. Madaxa hay'adda Red Cross xafiiskeeda Mandera Mudane Aadan Musdaf ayaa sheegay in hay'adda ay ka go'an tahay inay gaarsiiso dadka gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah iyadoo si dhow ula shaqeynaysa dawladda Kenya iyo hay'adaha kale ee samafalka. My name is Adam Mustafa, County Coordinator Kenya Red Cross Mandera. We have been responding to conflict that has erupted in Somalia. Mandera borders Balad Xaawo, which is a Somali town. We have seen a displacement of people, internal displacement and also refugees that are coming from Somalia. Here where I am, we are at Barwaaqo Primary School, which is one of the evacuation center. It is currently hosting 361 households. At now we have supported these people with non-food items. And also today, here we are giving them food aid. This food comprises of unga, cooking oil, green grams, as well as uji. This one will push them for the next 1 month. And each household will have these items and it will support them. So as we are here, we are in close collaboration with County Government of Mandera and also other agencies are also providing support as well. So the critical issue here that need support is a medical issue. We need more support in terms of medical activities and also support to this specific community. And as you are aware, we are also approaching a new term, which is the school is on a verge of opening. I think by end of August, this school activity will resume. If this peace is not restored, the children from this area, which is Barwaaqo location, will have difficulties. And as such, we need now to go ahead and plan and also look for a suitable evacuation site that will support this community. Dhanka kale wararka laga helayo dhanka xuduudda ayaa sheegaya in wali laga cabsi qabo inuu qarxo dagaal kale oo hor leh maadaama ay soo tarayaan xiisadaha u dhaxeeya dhinacyaha isku haya magaalada Balad Xaawo.
waxaana sidoo kale isi soo tarayo tirada dadka ka soo barakacayo magaalada Beled Xaawo kuwaasoo la dejin doono goobo kale ay dawladdu u diyaarisay. waxaana dadkii ka soo barakacay degmada Beled Xaawo walaaleen reer Kenya si fiican ay noo soo dhaweeyeen. Ilaahay baa mahad iska leh. walaaleen reer Kenya si fiican ay noo soo dhaweeyeen. dawladda Kenya iyo dadka naga walaalaha ah oo Soomaaliyeed oo Soomaali Kenya ah si wanaagsan oo qurux badan ay noo soo dhaweeyeen. waana la dejiyay iskoolaadana la dejiyay. ha yaraata ha badnaado wixii ahna waa naloo keenay. wadankiina colaada ka jirta hadda la joogo waa la isku hor fadhiyaa. ilaahay baa mahad iska leh. haddii ay nabad aan helnana waa noqon doonaa. haddii la is hor fadhiyo colaadii ay taagan tahayna maadaama iskoolka la furayo waxaan codsanaynaa meel aan abni ku helno dib in naloo sii geeyo. sida ammaankeena loo sugayna waan kaga mahad celinaynaa Kenya. hadeerna walaahi wax dhib ah ma qabno maasha Allah. colaadii aan ka soo qaxnay iyo hubki iyo madaxanaga wixii ka yeerayna hadda waa ka nasanay. waxaa kalaan ilaahay xaqiisa u mahad celinaynaa. waxaa kale u mahad celinaynaa reer Karooso oo aad dejinteena aad uga qayb qaadatay. ilaa haddana wax raashin ha yaraada ha badnaada nala daba taagan garabka nagana istaagtay. Kenya oo ayadana aan ka marnayn dawladda hadday shacab tahayba waa uga mahad celinaynaa. ilaaha mahad iska leh ka soo reer Kenya mahad iska leh. insha Allah hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan codsanaynaa haddii nabad la helana dib in loo celiyo. haddii sida la isu hor fadhiyay colaadi tahayna meel kale oo abniganaga ku sugan yahay nala geeyo insha Allah. walaalaha muslimiinta oo u imaanay uqaasha indhayar garatada culimo u diinka jiifafka dawladda sharafta leh wayna soo dhaweeyeen. si daahfur bay noo soo dhaweeyeen. ilaahay baa ku mahadsan. ayagana cise ayay mudan yihiin. si sharaf leh mudnaan leh ayay noo soo dhaweeyeen. waanu u mahad celinaynaa. haddana meeshaan raashin fara badan bay hadda noo tejiyeen. ilaahay baa ku mahadsan. way walaalahana soo gaarsiiyeen. ku ka badan inay soo gaarsiin doonaan waa rajaynayaa. wallaahi hadda xaaladda haddee laba baroodi meel ay ku dagaalameen baaligeed kuma dhaqne. carradii weli dagaalka waa socdaa gulufka baa socdo. haddii carrada nabad noqoto waa laga yaabaa inaan noqono. laakiin xaaladda haddii sii adkaato haddee meel lagu noqdaba haddee male. marka haddii xaaladda sii adkaato hay'adaha iyo dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa meelo kale oo ammaanka isugu yahay inay noo soo gudbiyaan. oon la sii noolaano ayagana waa u mahad celinaynaa. waana soo dhawaynaynaa. wixii haddee aan tagoonayn oo haddee dhibanna inay haddee noo qaban doonaan waan dareemayaa. wixii soo gaarsiiyeen waa soo gaarsiiyeen. way ku mahadsan yihiin.